meel lagu aruurin lahaa oo hadda la diri lahaa iyo wixii xataa hore oo noo sii diyaarsanaa wax hadda la diri karo ma jirto magaaladu way kala xiran tahay laakiin wixii dhaqaale wixii anaga tabarteena wixii ummadda ka soo ururin karno account waa fureena maalin horna waa idin sheegay laakiin walaashii farxiyo aan rabaa inaan insha Allah mar la hadlo asxaabta qaar waxay yiraahdeen farxiyo tawakkal walaalo maatiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشنا يا لول يا مختار قلبت محايدين ودناه جنال كورت أنا قد داونيسان يا لول جنال واي أصحاب جنال كيو كحيرن برنامج كان مرك وهرس وحيد قعد سنة إنا نوشير جريسين هدو إلهي يراهدو أصحاب تعصبنا حالي سوري دوادا تسكراب جري جنبليل كان فرطة سأقول سعتين وحيالها أي ولاشين سوق جلسو كومنتيga iyo like-ta waa xaqiina iyo share-ka haduu Ilaahay yiraahdo marka waxaan rabaa galabta inaan ka hadlo gabadha walaasheen ahayd Khadiijo habeen hore waa ka soo hadlay kaligeeyaan ka soo hadlay maxaa la Mukhtaar markaas ila Muuse fadhin waa xoogoo mashquul ahaa laakiin galabta u jeedin Mukhtaar saad badan ka dareemaysiin sababtoo ah gabadhaas walaashiisu aad ula damqaday markuu arkay ilaa hadeertaan Mukhtaar waxa aad uga murugaysan yahay marka walaal Khadiijo waxaan rabnaa insha Allah waxa soo dhigtay walaashan farxiyo tawakkal khayr badan Ilaahay siiyo wax shaqooyinka ay qabatay ay kamid yihiin gabdhaha walaaleed qof walba gurigiisa wiil iyo gabar naafada qabaan naafada baahiyaha gaarka qabaan ugu tagayso marka waxaan leenahay walaashan farxiyana khayr badan Ilaahay siiyo walaashan Khadiijo waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed saa u dhantiin inaan u wada istaagno waxa way sadaqada anaga ay dan noo tahay walaalaheen waxba naga ma dhibayso anaga ay dan noo tahay qof walba oo sadaqa baxsa asaga ay danta ugu jirtaa marka waxaan leeyahay walaasheen waxaan u baahanahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin inaan nala caawisiin gaar ahaan dadka naafada dad waxa jira ma sha Allah oo alxamdulillah iyagoo naafay laakiin dhaqaalana uu Ilaahay u siiyay waxaan leeyahay dadka idinka hooseeyo oo naafada oo walaalihiin inaa waxaan jeclaa oo idinkana u istaagtiin waxaa waaye Mukhtaar oo kala kamid wiilka eedada iyo adeerka una Asad Xaaji oo kala kamid dadka ma aragtay baahiyaha gaarka qabaan waa ina idinkan u kacdiin dadka walaalihiin oo dhibaataysan waxa way naafada dhan ma wada dhibaataysano inta dhibaataysan waa inta kale inay kor u soo qaado hadii wax loo qabanayo waa ina number 1 idinka u istaagtiin marka videogan maanta wuxuu quseeyaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka joogan gaar ahaan naafada Soomaaliyeed wuxuu si qaas ah u quseeyaa wuxuu si qaas videogan u quseeyaa oo ku celcelinaa wuxuu si qaas u quseeyaa wiilkeena Asad Xaaji si qaas u quseeyaa insha Allah new channel oo adeer sameeysan doona waan idin soo dhigi doona uu adeegi doona dadka baahiyaha gaarka qaba adeer waligiisna uu adeegi jiray 12 sano oo wadankan ilaa 15 sano joognaa 3 sano mooyaan inta kale naafada uu adeegi jiray waligiisna wuxuu u diri jiray wixii kalaankiisa ama wheelchair ha noqoto ama karaajiska lagu soconaay ha noqoto wixii tabartiisa uu u diri jiray waligiisba dhowr meeloodna hadda koor wax ka soo hadalna adeer uu u diray haddana maadaama aan YouTube sameeysto waa easy sida wax uu ku gudbin karo oo dadka codka u gaarsiin karo marka insha Allah waxa codsaday waxa YouTube-kay waxyaalo badan iskaga soo gudbiyaa dumar ahay inuu adeer mid kaleeto oo dadka ugu adeeg insha Allah aan furi doona Asad waxa ka codsanaynaa mar walbaba inuu garab siiyo dadka baahiyaha gaarka qabo Asad waa dareemi kartaa qof wheelchair saaran adeerna uu ku soo fadhin jiray wheelchair-kaas wax badan adigana hadda waa ku fadhisaa dad kale oo badan ay ku fadhiyaan dadna way balaa yihiinbo dhibaatada ma aragtay iyo xanuunka uu leeyahay waa dareemi kartaa alxamdulillah waxaan ku leeyahay marka waxaan ka rajaynaynaa si biniya ina ugu kacdin naafada Soomaaliyeed insha Allah channelkan aa kor soo qaadid lagu caawinayo naafada Soomaaliyeed haduu Ilaahay yiraahdo codkeena aanu soo gaari doonaa qof kastana waxa ku codsanaynaa ina Asad la gaarsiyo haduu Ilaahay yiraahdo adeer iyo eedo waxay u soo istaageen anaga ma waxa u baahanahay alxamdulillah anaga waa iska nimceysanahay
waddan waxaa joognaa Canada joognaa alxamdulillah ilaaha noo nimceey gaaladaas ilaahay wax noogu soo dhiibay anagoo shaqaynaynin alxamdulillah dhib ma qabno laakiin waa la damqanaynaa ummadeen dhibaataysan gaar ahaan dadka naafada maadaama uu odagayga uu yahay waa la damqanaynaa weynana dhibaysaa xanuun badan ay nagu haysaa waana dareemi karaa badanaa dadka naafada waxay qabaan 100% hadda koor waa idin sheegay ma dareemayo laakiin inta ugu badan waa dareemay sababtay taxaajigayga asaga aan la noolahay asagana dadka baahiyaha gaarka qabo marka insha Allah mar walba cod dheer iyo cod gaaban waxa uu fiidiyooga ku socdaa Asad Xaajiyow hala gaarsiiyo all youtuberiinta dhan waxaan leeyahay si share gareeyo uu istaaga walaalaheena naafada Soomaaliyeed fiidiyooga ee walaashan farxiyo soo dhigtay haloo istaaga insha Allah haloo istaaga dhaxdan haloo xirto sadaqada qof kasta oo sadaqa bixiyo qof kasta oo maartay qool fiican ku hadlo asaga dan u tahay gurigiisa dan u tahay awlaadiisa dan u tahay waxa waay walaashan hada maanta u kacano waxa laga yaabaa wax anaga inta gurigan ka soo qaadnaa wax weyn nagu ahayn oo anagan ilaahay meeshaas ay ka soo bixin wax badan uu noogu bedelay in ayadan ay u jiifto ee wax insha Allah ay ku faa'iideysan doonto adeeraha maartay adeerkiina ku soo dhaweynaya muxtaar ku soo dhawo insha Allah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan umada Soomaaliyeed waa idin salaamay gaar ahaan inta sadaqada la baxda iyo inta isku xilxilay barnaamijkan waxaan si gaar ah u salaamayaa walaasheen Farxiyo Tawakkal xaajigeeda iyo ciyaalkeeda ilaa cimrigooda ha u barakeeyo annaga reer Muqtaari meeshan aan taaganahay maanta odayga islaanti waa kan dad badan baa isweydiinaya maxaa keenay social media dhowr iyo 10 sano wadanka joognay waxaan isku daynay inaan sadaqooyin iyo wax ururno bacbaanu la wareegi jiray laakiin hadda arrintii waxa u wareegtay social media aniga oo daadana waxa ay keenay dhibaatooyinka iyo baahiyihii ka jiray wadankii maadaama meelaha ordaynay in si bayaan oo la arkayo dadku ugu gurmadaan sida Farxiyo hadeer arrin waxay keentay lagu daydo khayr Allah siiyo waa arrin bayaan oo cad oo dadka ay soo wareysato oo aanana ummadii dhaqaalaan haysana kuma caawinayne dadka xiniyaha dadka iyagan ku faanayna aan la dhex orodno waxay Farxiyo soo gudbiso marka wax arrimahaas aan keenay meesha anigoo daadana social media igu soo daray waayo wax kale oo baahiye maanta alxamdulillah imay keenin waan iska barwaaqaysanaa ciyaalkaygu dawladana wayna caawisaa ilaahay baa noogu soo dhiibay xanuunaa dhacay marna waan iska shaqaysaa anigu mar baan iska shaqay mar Uber baan wada mar taxi baan wada mal meelahaasaan iska orda ma hadeer laakiin ummadoo dhan baan shaqaynin marka waxun guri iyo baahiye noo geysay maaha waxa weeyaan saas ayaan doonay inaan ku gurmanay wixii la oran lahaana waxa tidhi haware ayaan aad baan ugu faraxsanahay Farxiyo iyo dadka soo baxay oo sida wiilka hadeer ay soo gudbisay oo Mahdi ubax side wiilkana waa insha Allah laga hadli doonaa waxa barnaamijkan ku socdaa maadaama uu experience nooga leeyahay nooga soo horeeyay naga macmiil badan yahay jankiisa ummadoo dhan ku xidhan tahay ninkii niyada u dhisay dadka naafada inay wadada maraan oo social media ay ka soo qayb galaan oo wiilkan adeerka u nahay Asad Xaajiyow adeer xanuunkan maanta loo orday waa soo martay waanad garanaysaa lagu sharxi maayo inta ka badan waan ku ducaynaynaa nagala garab qaado wadooyinkan mari lahayna tus social media iyo waxan adiga nooga horeeyay sidii la isugu xidhayay dadka Farxiyana insha Allah waa Farxiyo Tawakkalna ku xidhan dad kale soo baxay sida gabadha Shukri wiilka Mahdi ubax side dadkaana waxa weeyaan insha Allah waxa weey caawi annana waan warbaan ka sugeynaa barnaamijkan gabadha yar Shukri gabadha Khadiija ee loo gurmanay aad noo xanuujisay ummadda Soomaaliyeed dhamaan ha u gurmadaan iyo magaalada aan joogno Toronto bacayagii baan la ordaynaa waxaan isku daynaynaa akoon samayno hooyada gabadha dhashay Farxiyaan la xiriireynaa insha Allah wixii go'aanana meeshaas ayaan soo dhigaynaa marka khayr Allah idin dhamaan salaamaya asadaana sigaaran ku salaamaya iyo dhamaan naafada Soomaaliyeed meel kasta joogto insha Allah waxa adeer soo idin sheego waana waa idin sheegay asad wax kale laga amaro waxa laga rabaa in ma aragtay janalkaada ka caawisid naafada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa fahmi kartaa waa dareemi kartaa insha Allah janalka laga caawinaa sida eedada ayaa luul iyo adeerka Muxtaar ee u istaagay inay caawiyaan naafada Soomaaliyeed waligeena waa caawin jirna walaashan Farxiyo Tawakkal insha Allah anaga waa cusubnahay janalkan laakiin shaqada naafada ma cusbo waa shaqo magaaladan Toronto dhan adeerna lagu yaqaan waligiisna uu qaban jiray maxaa la waa hadda koorna waa ka soo hadalna mar walba in laga hadlo ma wheelchair hadeeta karaajis hadeeta hatta sariiraha geeska laga taabanayo oo batanka dhaqaatiirta ma aragtay markay istaalada muddo ay yaalaan waa iska bedelaa wadankan wax walba iyaga cusub dadka laga bedela laakiin dadkeena ma haystaan mana awoodaan inta tabartiis adeer ma aragtay uu diri jiray store halkaas uu ku aruurin jiray khayr Allah siiyo wiila for free ku diri jiray because nin walba kaalintiisu ka qaadan jiray wuxuu arkay waxaan meelaha la iska dhigdhigaa inay dadkiisa u baahan yihiin inay dadkiisa ma aragtay u dhibaataysan yihiin
dareenkaas waxa ku abuuray sababtay ta asaga ayaa soo maray wheelchair lagu fadhiyo asaga ay heer soo maray aan wheelchair hataa lagu fariisanin oo saas uu iskaga yaalo oo saxaradii wax walba laga qaaday dhibaato dhan wuu soo maray adeer alxamdulillah haddana wuu ka kabsaday waxa waa wadankan aan imaan ilaahay gaaladan wax ugu soo dhiibay waxa waa artificialkiisa ugu jiro wuu socdaa wuu ku shaqaystaa mararka qaar inkastoo hadda xanuun jiro shaqeyn adeer tagsiilo waa magaalada dhexdeeda ka shaqeeyaa khayrka wuu ka shaqeeyaa masaajidada wuu ka shaqeeyaa weligiisna wuu ka shaqeeyaa wuxuu hadda bilaabay ma ahan laakiin hadda waxay u tahay codkiisa easy codkiisa u tahay inaan ma aragtay aan gudbino waxa waa la rabaa mukhtaar amaanta in lagu ammaano aan hadda ku ammaanayo ku ammaanay Soomaali Maxamed ku ammaanaysa odagayna ani ammaano wuxuu qabanaa in aan sheego marka waxa waay kale magaaladan aan joogno waxa inta tabarteen anagu waa sameeynayna waa qabanayna hadda wili jarrada iyo wixii ma aragtay xitaa dadkii la ma aragtay meel lagu aruurin lahaa oo hadda la dir lahaa iyo wixii xitaa hore oo noo sii diyaarsanaa wax hadda la diri karo ma jirto magaaladu way kala xiran tahay laakiin wixii dhaqaale ee wixii anaga tabarteena wixii ummadda ka soo ururin karno account waa fureena maalin horna waa idin sheegay laakiin walaashay farxiyo aan rabaa inaan insha Allah mar la hadlo asxaabta qaar waxay yiraahdeen farxiyo tawakkal walaalo maatiin isku qolaatiin caaw farxiyo qoladay tahay ma aqaano waxa waa cid u dhalatayna ma aqaano wali hatta gabadhaas wali telefoon halow misku dhihin laakiin waa taageeraa sababtay tahay waa gabar dhiiran guulo badanna soo dhaliso maalin walba janalkeeda waxyaalo aan ku farxaan ka arkaa gabdhaha walaaleed iyo wiilasha walaaleed baahiyaha gaar qabay dhiiri gelisaa way jeceshaa inay kor u soo qaado way jeceshaa inay wax u qabato that's why aniga waxaan daris laahay odagayga oo ah dadka naafaha baahiyaha gaar ka qabo naafada aniga waxa waay alxamdulillah lixaadkeygana uu ii dhan yahay asagana alxamdulillah inuu hadda wax qabo aniga uma arki waxa waa in la is dhiiri geliyo kuwa walaalaheen oo maskaxda ayba ka dhimato oo naafada isku qufuleen naafada niyada waay inaan ma aragtay niyada u dhisno waa wax nagu qasab sida walaashan farxiyo ay positionka ay ka ciyaarayso position ciyaar ma aho walaalay been ma ku sheegay ani ayaan dhinacayga taalo ayaan ku qoray ma faan taalo ayaa ku taagay sababta shaqo fiican haysa dad badan oo rag iyo dumar way kula joogan magaalada joogto waxa jira hatta dad naafa oo ma aragtay ma sha Allah oo ilaahay xoolo u siiyay naafada kulli dad dhibaataysan ma aha inta adiga garato wax garto ma jirto dadka saa u soo saaraysid bariyaan guulaha wali way iska daba imaanayaan inkasta dad xanuunsan ay jiraan xanuunkan insha Allah waxa rajeenaynaa waxay tiri farxiyo oo shalay videoga soo dhigtay waxa rajeenayaa ma ka fariisanaa mana ka heray naafada inay meel kore gaaraan insha Allah waa rajeenaynaa farxiyo ilaa waxa rajeenaynaa ma aragtay sida xafiisyada ee dawladdu u siisay bahda isboortiga bahda fanaaniinta insha Allah bahda curyaamiinta inay xafiisyo siiso aan rajeynayna oo baahiyaha gaarka qabaan waxa waa koob dawladda nagu soo tumatay anaga dawladda tii hore tan hadda joogto ummadda Soomaaliyeed ma loo kala harin naafada Soomaaliyeed waxa waa lagu tuntay laakiin hadda xoogaa dadka inay sida hore jaahilnimada ka baxayaan moodaa insha Allah dawladdan ilaa idan xaqaa tuso naafada positionka ee ku lahayd ilaa hadda waa uga fadhina waana ka sugaynaa man istaageen ilaa ay siiyaan waa inay siiso positionka ay ku lahaayeen naafada Soomaaliyeed ma joojinayna hadalka ilaa asiisiin waxa dadka ummadda ay kamid yihiin ummadda u dhaartay inay kamid yihiin meelaha raacsiiseen bal ma garanaa insha Allah iyadan waa ka sugeynaa waan rajeynaynaa in xaqi lagu lahaa ay siiso naafada Soomaaliyeed ee ku lahayd marka janalka waa soo xireynaa wiilkeena Asad Xaajo isku soo duuduub waxaan rajeynaynaa inaan noo soo jawaabtid janalkan kor u qaadid lagu caawinayo naafada Soomaaliyeed hadduu Ilaahay yiraahdo waa codsi kaaga yimid eedada iyo adeerka anaga maanta wax dhibaato oo hayso oo Ilaahay ma aragtay alxamdulillah oo anaga amaanta u baahan oo kaaga baahan ma jirto laakiin waxa u baahanay janalka ina kor soo qaadid loogu adeegayo dadka baahiyaha gaarka qabo insha Allah muhiimadda waa intaas qaybtaadana ka soo istaagtay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan jeclaa ina ii soo jawaabtid asxaabta janalka ay ku xiran waxaan leeyahay barnaamijkan share garee walaashin qadiijo loogu gurmanaay everywhere hala gaarsiiyay every youtuber waa ina share gareeyno barnaamijyadan oo kale hadda koor waxaan dhahay waxyaalaha oo qof walaal ka hadla laga daba hadlayo xasal iska daayo barnaamijkan oo kale waxa loo baahan in la share gareeyo all youtuber oo dhan walaashan qadiijo waa ina soo qaadatiin waa ina ka hadashiin nin walba kaalintiisii waa wax waajib oo na sugayso waa loo u simanahay walaasheen ma garanayno walaa farxiyo soo qaadayaan dar Ilaahay isku barane waxa isku barane le walaa bila inay message soo qorto comment video ay ka bixiso iyo ina keeda ka bixin farxiyo wali halo madin muxtaar way isla hadlaan aniga wali islaam hadna insha Allah waan rajeynaa waa isla hadleen inaan isla hadalno marka insha Allah waxa soo dhigayaa hadduu Ilaahay yiraahdo account qof walba wuxuu awoodo sadaqa wax yar maaha
$2 ha ahaato $10 ha ahaato $100 ha ahaato $500 ha ahaato $50 ha ahaato $20 ha ahaato qof walba wixii ka go'o kalaankiisa intaas inka badan ay meesha ka soo bixiso ku galayso sadaqadan ha loo degdego mar hore aan loo sheegay reer Toronto ku dar bacdo insha Allah reer Toronto waaba ka koobo idinka waxa waay dukaan kasto iyo business kasto waa taagana insha Allah ani odagayga wixii ka dambeeyo caawa hataa deeno suurta gasho waa bixeenaa hadda galabay noo tahay waqtigu noo saamaxo oo waa sabti oo magaalada aan laga hor xilin ina insha Allah wixii kalaankeena soo aruurino waana soo gudbinaynaa abaayna sidii looga hagaajinayo insha Allah waa idin soo gudbinaynaa asxaabta channelka ee ku xiran waxa video ugu dheeraaday hadalku ma soo koobi karna caawinta walaasheen insha Allah waxaan idinka filaa inaa u soo wada kici doontiin Soomaalidan dhibaato iyo wax markay jiraan saayida iskugu soo gurmana arimaas oo ku fiican walaasheen u gurmana sida ayaa la yaro loogu gurmaday insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.